kugu sheegay xasan inuu dagaalkii farmaajo ku jiro dagaalkii farmaajo axmedoobe ka dhexay xasan inuu galay saraakiishan oo aaminsanay la shaqeynayaan maamulkii iyo dadkii farmaajo la shaqeynayay inay la shaqeynayaan ay ku dhex jiraan la rabo xashan in la fashiliyo Jubbaland dan weyn ba aysa ka ahayn waxaan aaminsanahay ciidamadaas naftooda qatar ay ku jirtaa siyaasadda xasan sheekh meeshii ku fashilmaysay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo awood ciidan waa meesha xasan si marka ciidankaas naftooda loo badbaadiyo waa inuu ciidanka meesha ka soo raro sida ugu fudud heli karo waa in ciidankaas meesha laga soo qaado waxaan isleeyahay way adag tahay inuu soo qaado sababtoo ah ciidan meesha laga qoray oo la sheegay ciidamo isdhiibay waxaan yani raggan xasan baddaan geliyay waxay u iftiiminayaan xasan inaan dagaalkaanu istaagin waxayna tusayaan madaxweynaha in laga guuleysan doono aqligu ha shaqeeyo raaskambooni ciidan lagu dejiyay Kismaayo waxba ka qaadi maayaan abaabulkii la isku dayay Kismaayo qalqalka in la geliyana waxa muuqata inuu fashilmay ciidan kale oo meelo kale xuduudaha la geeyane oo shabaab ay ku hareeraysan yihiin waxba kama bedeli doono waxa meeshaas ka muuqata lacag xumo dhaqaalaha xasan oo hoos u dhaca sharafta xasan oo hoos u dhacda qiyamka dawladnimada Soomaaliya oo hoos u dhaca federaalkii iyo midnimadii iyo dawladnimadii oo meeshaas yani runtii dhaawac weyn ka soo gaaro taladeedu waxay tahay marka wiilashan la soo badbaadiyo ciidankan Soomaaliya la soo badbaadiyo nimankan saraakiisha lacagta ka sameynaya hadalkooda yaan la dhageysanin madaxweyne xasan sheekh wuxuu baahan yahay inuusan hadalka wiilashan lacagta ka sameynaya uusan fiirin oo fiiriyo amniga iyo badqabka dhalinyarada Soomaaliyeed Jubbaland maamulka xasan ka dambeeya ama waa la heshii doona ama wuxuu ba isbedeli doona laakiin dagaalkii farmaajad ku jirta xasanow saraakiishan gacanta ku taagaysan kuma badbaadi doonaan ciidankana badbaadi doonaan dawladda Kenya iyo qabiilka ogaadeen iyo dadkan kale oo la hadlaysin cid Axmed Madoobe maanta u bedelaysa oo malayma inay diyaar tahay waqtiga xaadirka oo door waan sida Soomaali kaliya ku shaqeyso waa wixii farmaajo loogu hortagay nin daarooda wadanka qabsaday nin daaroodaha doorashadii lagu heshiisaan diidanay yaa hawiyahay wariyaa habar gidira wariyaa abgaala wariyaa mursada wixii farmaajo lagu diray dacna waanu kaarka qofka Soomaaliga oo markastoo xaaladda ugu dambayso kaarku xoqda weeyaan waa kaarka looga baahan yahay qofka Soomaaliga markuu doonayo awood inuu ku adkaysto inuu xoqdo waana xoqda hadda Jubbaland abaabulkaas ka jira waxaad arkayseen Kenya waxaad arkayseen maartay maamulka Soomaalida Ethiopia waxaad arkayseen Jubbaland lafteeda oraahda iyo erayada dadku isla dhex marayaan oo aaminsan in lagu soo duulo way adag tahay in halkaas wax laga qabto wayna adag tahay in ciidankaas ay yani ma dhici doonto in ciidankaas Kismaayo tagaan ma badhacaysan maxay noqonaysaa marka gabagabadooda waxay noqonaysaa aragtideyda iyo fahamkaygu wuxuu yahay ugu dambeyntii ciidankan hadayba badbaadaan al-shabaab ka badbaadaan taas oonan filayn inay ka badbaadayaan ana isleeyahay talada ugu fiican maanta la heli karaan la sii karin ay tahay dhahan in la yiraahdo Axmed Madoobe iyo Jubbaland ha ku mashquulinina waxaad ku mashquulshaan sida shabaabka derbiyada iyo geedaha dhexdooda ka soo fiirinaya inaad sida isaga difaaci lahaydeen ciidankaasu in la soo badbaadiyo ayaa talada ugu fiican tahay haddii xasan sheekh uu diido laano saraakiishan xasan lacagta ka lisaysa ee xasan doonaysa jilbaha dhulka inuu dhigto ee xasan doonaysa inuu fashilmo waxaan kaloo horeen kugu sheegay xasan inuu dagaalkii farmaajo ku jiro dagaalkii farmaajo axmedoobe ka dhexay xasan inuu galay saraakiishan oo aaminsanay la shaqeynayaan maamulkii iyo dadkii farmaajo la shaqeynayay inay la shaqeynayaan ay ku dhex jiraan la rabo xashan in la fashiliyo Jubbaland dan weyn ba aysa ka ahayn waxaan aaminsanahay ciidamadaas naftooda qatar ay ku jirtaa siyaasadda xasan sheekh meeshii ku fashilmaysay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo awood ciidan waa meesha xasan si marka ciidankaas naftooda loo badbaadiyo waa inuu ciidanka meesha ka soo raro sida ugu fudud heli karo waa in ciidankaas meesha laga soo qaado waxaan isleeyahay way adag tahay inuu soo qaado sababtoo ah ciidan meesha laga qoray oo la sheegay ciidamo isdhiibay waxaan yani raggan xasan baddaan geliyay waxay u iftiiminayaan xasan inaan dagaalkaanu istaagin waxayna tusayaan madaxweynaha in laga guuleysan doono aqligu ha shaqeeyo raaskambooni ciidan lagu dejiyay Kismaayo waxba ka qaadi maayaan abaabulkii la isku dayay Kismaayo qalqalka in la geliyana waxa muuqata inuu fashilmay ciidan kale oo meelo kale xuduudaha la geeyane oo shabaab ay ku hareeraysan yihiin waxba kama bedeli doono waxa meeshaas ka muuqata lacag xumo dhaqaalaha xasan oo hoos u dhaca
sharafta xasan oo hoos u dhacda qiyamka dowladnimada Soomaaliya oo hoos u dhaca federaalkii iyo midnimadii iyo dowladnimadii oo meeshaas yani runtii dhaawac weyn ka soo gaaro taladeedu waxay tahay marka wiilashaana la soo badbaadiyo ciidankan Soomaaliya la soo badbaadiyo nimankan saraakiisha lacagta ka sameynaya hadalkooda ayaan la dhageysanin madaxweyne xasan sheekh wuxuu u baahan yahay inuusan hadalka wiilashan lacagta ka sameynaya uusan fiirin oo fiiriyo amniga iyo badqabka dhalinyarada Soomaaliyeed Jubbaland maamulka xasan ka dambeeya ama waa la heshii doona ama wuxuu baa isbedeli doona laakiin dagaalkii farmaajood ku jirta xasanow saraakiishan gacanta ku taagaysane kuma badbaadi doonaan ciidankana badbaadi doonaan dowladda Kenya iyo qabiilka ogaadeen iyo dadkan kale la hadlaysin cid Axmed Madoobe maanta u bedelaysa oo maleema inay diyaar tahay waqtiga xaadirka oo doorashadan iyo hadda maalmahan iyo sanadahan socdo adigoo marka aqligaada soo ceshanaya Axmed Madoobe saad u heshii lahayd ama cidi ka dambayso u heshii lahayd waa fursad furan laakiin ciidamadan badbaadi ciidankan shabaab ka badbaadi lacagtan aad ku dhiig baxaysa